haddii dawladda aanay qof iyo cod ay ka ahayn daacad ka ahayn oo muddo kororsi howlo kala wadada qaladka ayada iskale markaas galmudug iyo hirshabeelle maamul goboleedyada kale way ka hareen sababtay ugu hareenna waa shabaab dawladahan dhan oo Soomaaliya badda haysta oo waxay kala baxayaan aan la garanayn oo bariga haysta oo waxay la baxayaan aan la garanayn oo buuraha tagaya oo waxay sameynayaan aan la garanayn dhamaantood waxa soo hogaaminaya oo qiil u sameynaya ururka al-shabaab MAPSA waa shirkad aamin ah oo macaamiisheeda u maqsuudeeno maalgashi dhul iyo malaayiin lagu aamino Maryan iyo Maxamed macalinka iyo maahirka duunka intaba ay dhulka wada iibsadeen MAPSA waxay caan ku tahay iibinta dhul sharci laho oo sabar loogadooda ay diyaar tahay dhisida daaro qurxoon iyo daboolida baahida macaamiisha waa waxa ay dheer tahay shirkadaha kale oo abaalmarin lagu gudoonsiiyay MAPSA waxay dhul iib ay kaga haysaa deegaanada Konza Malindi Makindu Nyanyuki iyo Kajiado wixii faahfaahin ah MAPSA kala soo xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda Zuri iyo Shirani waa dhismayaal laga dhisay xaafadda South Sea Zuri wuxuu ku yaalaa agagaarka isbitaalka Reliance waa gabagaba oo dhawaanaya xaraga laga jari doona Zuri wuxuu ka kooban yahay 4 qol waxaana ka banaan 10 flat kaliya iib ah halka Shirani oo ku yaala ka soo horjeedka iskuulka Kenya Water oo isna dhismihiisa hadda uu bilowday Shirani qolalkiisu waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo 3 qol ama waxa loo yaqaano 2 bedrooms iyo 3 bedrooms guud ahaan Shirani wuxuu leeyahay 36 flats 10 waa la iibsaday waxa hadda banaan oo iib ah 26 flats qolal waasac ah fadhi qurxoon qol chief oo si heer sare loo sameeyay iyo jikadii iyaduna sida maqaaxid caalami ah loo hagaajiyay ayay Zuri iyo Shirani leeyihiin horay u soo dhaqso oo qayb ka noqo dadka iibsanaya qolalkani lacagta muddo 2 sano ah ayaad si tartiib ah iskaga bixin kartaa wixii faahfaahin ah nagala soo xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo la yeelanayo Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo ah madaxii hore ee BBC-da laanteeda afka Soomaaliga sidoo kale waxa uu leeyahay shirkad ka shaqeysa arrimaha warbaahinta iyo waliba cilmi baaris oo la yiraahdo Bright View International waxaan ka wareysan doonaa xaaladda Soomaaliya arrimaha ammaanka iyo waliba kursiga golaha ammaanka ee Soomaaliya sharci rasmi ay ugu beertay ciidamada howlgalka Afrika ee ATMIS la dhihi jiray oo hadda magac kale u sii guuray ee Awesome yana waan eegi doona xaaladii Soomaaliya iyo Ethiopia armi khilaafka ka tagnaa ee badda yana waan eegi doona heshiiskii ay gaareen ilaa hadda dadka si wanaagsan uma fahmin waxa labada dawladood ay ku heshiiyeen ugu horeyn iyo ogolaada inaan wareysiga aan ku soo dhaweeyo martidayda maanta Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq soo dhawow waa mahadsantahay walaal aad baad u mahadsantahay guud ahaan horta xaaladda Soomaaliya nooga waran hadda xaaladda ammaanka iyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waa sidee horta Soomaaliya waxay soo martay xaalado kala duwan dagaalkii sokoye kadib waxa adkaydba inay dib isugu soo noqdaan oo dawlad noqdaan waxa adkaydba inay xamar ama Muqdisho ay nabad noqoto hadda waxaan isleeyahay rajadii ugu fiicnayda jirta markaan ka hadlayna ammaanka magaalada Muqdisho markaan ka hadlayna ammaanka gobolada ku xeeran magaalada Muqdisho markaan ka hadlayna in Soomaaliya ay haatan dunida la jaan qaadaysa oo cunaqabatayntii hubka laga saaray oo hub ku filan ay soo degsan karto oo qoliyaha nabadiidka ay ka hortagi karta markaan ka hadlayna in Soomaaliya ay xubin ka noqotay golaha ammaanka ee qaramada midoobay xubin aan joogto ahayn marka waxaan isleeyahay waxa ay soo martayba hadda ugu rajo fiican tahay waa dhanka arrimaha ammaanka siyaasadda ka waran siyaasadda horta wadan ay siyaasadiisa degan tahay ma jirto hadda Nairobi aan joognaa Kenya siyaasadeedu waad ogtahay maxal dawladda la afgambin gaaray bartamihii sanadkii hore marka siyaasadda mar walba way kacsan tahay Soomaaliya siyaasadeedana way kacsan tahay siyaasadda Soomaaliyana loolan wuxuu ka dhaxayaa dadka haatan la jaan qaadi raba Soomaaliyada cusub ee dadka raba Soomaaliya qaabkii awal ahaan jirtay inay iska ahaato oo maamul goboleedyo awood badan oo dawladda maaragtay ka xoog badan oo raba inay dawladda ku qasbanaata dawladdana waxay rabtaa in wax la isla og yahay oo dawladda hormuud ka tahay sida adduunkaba ka dhacda in dawladda dhexe ama dawladda federaalka ay mas'uuliyadeeda iyo waajibaadkeeda qaadatay
inay maaragtay dhankaas u jihaysata laakiin waxaa jira dee siyaasiyiin iyo dad raba qaabkii hore in la ahaada qaabkii horena moogtahay waxaa fududayd isbeddelka sida xukunka lagu gaaraya fududayd haddii la aado doorasho qof iyo cod ah xisbiyaa imaanaysa waddankii wuxuu aadayaa yacni xasilooni siyaasadeed in la fahmi kara laba xisbi ama saddex xisbi midkood ama hebel madaxweyne noqon kara oo keliya ayay ka mid tahay yacni xasilooni siyaasadeed waxay ka bilaabanaysaa in la qiyaasi kara ama hebel ama hebel ama hebel madaxweyne noqonaya ama xisbi hebel hoggaanka qabanaya intaas bas ah waxaa xasiloonida siyaasadeed ay ka bilaabanaysaa awal waxay ahayd xasilooni darro siyaasadeed jirto cid madaxweyne noqonay lamaba garanaynin qof iska soo tagay oo weligiis aan la arkin oo weligiis siyaasad soo gelina iska noqon kara madaxweyne marka waxay rabaan siyaasiyiinta qaar waxay rabaan qaabka hore inay bahasha ahaato haatan waxaan arkayaa dawladda Soomaaliyeed go'aan waxa ka ah in waxaas laga baxa oo doorasho qof iyo cod la aada oo xasilooni siyaasadeed la gaara oo dhowr xisbi ama dhowr qof la saadaalin kara siyaasadda Soomaaliya qaabka ay noqon karta marka waxaa isleeyahay dhanka siyaasadda lafteeda horumar weyn ayaa jira haddii sida ay wax noogula sheegaya ay run noqoto mucaaradka ayagan walwal ay qabaan waxay leeyihiin dawladdii ama waxaan dhab ka ahayn oo ay waxaan ku awrkacsanaysaa oo muddo kororsi iyo wax kale u socotaa haddii dawladda aanay qof iyo cod ay ka ahayn daacad ka ahayn oo muddo kororsi howlo kala wadadee qaladka ayadaa iskale markaas oo nimankan mucaaradka ah oo shakisan waxay ka shakisan yihiin run bay noqonayaan laakiin siday wax u sheegayaan haday u jiraan oo qaabkay wax u wadaan ay sax tahay waxaan isleeyahay waddo fiican ayay ku socotaa waa gartay arrimahaasi ee aadkaad noogu sharaxday nooguna soo koobtay aan rabo marka inaan si ballaaran uga hadalna aan ku hormaray laba shay ilaa saddex shay ayaa waqtiyada ugu dambeysay ee Soomaaliya aad looga hadlayay arinta khilaafka dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland arrimaha la xiriira doorasho qof iyo cod ayay arrimahaasna ay ka imaaday iyo dagaal beeleedyadan aad ku soo kordhay iyo arinta Ethiopia laakiin waxaan rabaa inaan ku hormaro dagaal beeleedyadan soo kordhay iyo waliba ciidamadii dawladda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la laayay oo qaab qabiil loo ugaarsaday midda aan ku hormarnay ciidamada horta la laayay fikirkaaga ku aadan muxuu yahay ciidamada la laayay iyo dagaal beeleedyada horta way isla socdaan waxaad ogtahay Mandera sanadkii hadda labada maaha sanadkii hore taariikh 2 January aan ku jirnaa mogta sanadkii hore darraada sanad hore noqon sanadkii hore Mandera waad ogtahay dagaal beeleed ka dhacay dagaal beeleedkaas wuxuu ku soo aaday xilli ay dadweynaha meeshaas degan ay al-shabaab ka hor yimaadeen oo ay doonayeen inay iska bixiyaan Mandera deegaanka Mandera Ramo dagaal beeleed ka jiray mar alla markii la heshiiyo oo dagaal beeleedka lagu heshiiyay waxaad arki dad mooto wata waxay dilayaan qof kamid ah beelaha Israa'iil dagaal beeleedka waa soo noqonaya laba shay waxaan ognahay horta dagaal dadka oo deegaanka moota waa la garanayaa cidda moota intay isticmaasho wax ku disho ku cararta marka ururka al-shabaab marka iyada ay ka dambeeyay laakiin cid kor u dhaxday ma jirin kan hadda Mandera waa gobolka Waqooyi bari Kenya kan haatan Soomaaliya ka socdana ayaga ka dambeeya odayaashii bay ku dhex jiraan siyaasiyiinta qaar ay ku dhex jiraan waxay rabaan mar alla markay loo jihaysta allaan dawladda ciidankeedii waxay garabsanayaan niman macawiisley la dhaha oo dagaal oo beelo ka tirsan dagaal beeleed hadduu dhaco macawiisleydii iyo dadkii deegaanka way la soo baxayaan ciidankoodii dagaal beeleedka ay aadayaan al-shabaabkana macawiisleyda iyo ciidanka dawladda waxaa u daran macawiisleyda maxaa yeelay macawiisleyda waa dad oo beelo ah waa dad maaragtay ay daacad ka tahay inay inkastoo ciidamada dawladdan ay daacad ka tahay ciidamada dawladda awaamir iyo tala iyo wax fara badan jiro xadidaya nimankan wax xadidaya ma laha dhulkooda ay xoreysanayaan marka dagaal beeleedyada Soomaaliya ka socda oo dhan kan Hirshabeelle ugu daran oo ciidamadii maaragtay loo beegsaday qaab beeleed oo ciidamo macawiisleyda inay meelaha ka soo baxaan sababtay oo ciidamada dawladda qaarkood xitaa inay gadoodaan sababtay kaasa ugu daran kan Galmudug dagaal beeleedya waxa ka socda saddex isagana saddexda dagaal beeleed oo meesha ka socda kulli ayagana waxay xiriir la leeyihiin dagaalka al-shabaab kan haatan xadka Galmudug iyo Puntland ka socda wuxuu saameyn ku leeyahay dagaalka ay buuraha ka wadaan Puntland iyo kan ay Galmudug wada labadaba saameyn ku leeyahay marka la isdagaala beelihii waxay ka soo baxayaan frontiga Daesh lagula dagaalamay frontiga al-shabaab lagula dagaalamay ayagii oo soo imaanayo dagaalamayo
sidoo kale dagaal kasta oo beeleed ah oo galmudug ka socdana saas oo kale uu leeyahay kan ceeri gaabo ka socdana waa sidoo kale isla dadka ka dagaalamaya buuraha qabaa'ilka ama beelaha ayaa haddana ay saamaynaysa dagaalka ceeri gaabo ayagiiba haddana halkaas tegaya marka dagaal beeleedyadan oo dhan waxaa saamayn ku leh oo ku jirta oo ka faa'iidaya al-shabaab iyo daacish ayaga waxay rabaan in dhibaatadan Soomaaliya iska daba jiitanta oo Soomaaliya mashruuc noqoto mashruuc inay Soomaaliya tahay waxa sabab u ah shabaab iyo daacish Ethiopia hadda waxay ku doodaysaa Soomaaliya waa inaan ku dhex jirna sababtana waxay tahay shabaab aan la dagaalamayna shabaab hadda ayna jirin Ethiopia maanta qiilay Soomaaliya waa joogaynaa oo ay siyaasaddan saameyn ku yeelanayna maamul goboleedyadan saameyn ku yar ay ku dhahda ma jiri lahayn dawladahan dhan oo Soomaaliya badda haysta oo waxay kala baxayaan aan la garanayn oo bariga haysta oo waxay la baxayaan aan la garanayn oo buuraha tagaya oo waxay sameynayaan aan la garanayn dhamaantood waxa soo hogaaminaya oo qiil u sameynaya ururka al-shabaab marka dagaal beeleedyadana isaga sabab u ah isagaana ka faa'iidaya marka waxa kaliya ay Soomaali u baahantahay inay iska bixisa waa ururka al-shabaab maxaa yeelay qabaa'ilkan meel loo raacay leeyihiin wada laga galay leeyihiin odayaal laga galay leeyihiin qaab lagu heshiiyaa jirta marka wakaas marka qaabkaas ay u tahay shabaab ee dagaal beeleedka iyo daacish isugu xiran yihiin marka dagaal beeleedyada aad bay u soo badan hayaan ilaa iyo qiyaastii dhowr 20 meelood ayaan filayaa hadda dagaal beeleedyo ka socda marka inay dagaal beeleedyadu kordhaan waqtigan ay soo wada bataan waxa sabab u ah taamkii hore ee madaxweyne xasan sheekh saanay u badnaayeen sababtoo ah dagaalkii al-shabaab lagu qaado ugu ballaarnaa lagu qaaday magaalooyin badan laga qabsaday inta laga qabsaday ayagana waxay ka faa'iidayeen marka dagaal beeleedyada taamkan oo madaxweyne xasan uu soo noqdayna dagaal weyn haddana lagu qaaday ayaga marka dagaal lagu qaado marka waa inay xeelad adeegsadaan oo 5 sano ama 4 sano ay ku dhaafaan xeeladooda marka mar walba waa dagaal beeleed inay adeegsadaan oo beelaha isku diraan oo odayaal ayaga u shaqeeya ay hadal xumeeyaan oo dadka qabaa'ilka iscaayaan oo lusku maaratay lusku fidneeya dadkii ayaga ka faa'iidaya ayagana ka dambeeya marka qaabka ama farsamada ay al-shabaab isticmaalayso ee dagaaladan ay ku kicinayaan waa qaab noocee ah horta al-shabaab bulshada ka mid yihiin haddii ay nabad qaataanna waxay xaq u leeyihiin inay siyaasadda ay qayb ka qaataan waxa la diidan yahay waxay tahay un xoogga iyo argagaxinta iyo cunfiga ay isticmaalayaan laakiin mabda ahaan iyo fikir ahaan bulshada ay qayb ka yihiin bulshadii marka kulligood duurka kuma jiraan oo buuraha kuma jiraan iyo kuma jiraan qaar adag kula jooga qaarka adag kula jooga marka qaarkaas la adeegsanaa marka inay dagaal beeleedyada furaan inay qaab u hadlaan inay qaab u shaqeeyaan odayaal ay leeyihiin al-shabaabka odayaal ayaga raacsan bay leeyihiin marka odayaashii inay soo dhaxmaraan dhalinyarada ayaga raacsan inay soo dhaxmaraan qaabkaas ay maaragtay ay u adeegsanayaan haddii ayaga ay haatan hub ka dhigaan oo nabad qaataanna waa in la siiyo qaab ay siyaasadda uga qayb galaan wadamo badan ay nabad ka dhacday Colombia waxaa jira urur la dhaafaar oo maaragtay shuuci ahaa oo markii hore waxaa loo diiday inay qaabka siyaasadda ka qayb qaataan dawladdii waxay la timid hanaan sanadkii inay qayb ka noqdaan loo ogolaaday xisbigoodii waxay isu bedeleen xisbiga shuuciga siyaasadda ay qayb ka noqdeen shuuciyada dabcan lama jecla hadda oo maaragtay wadamo badan oo adduunka ah saameynta reer galbeedka badan laakiin ayaga way ku dhiiradeen way u ogolaadeen waan ognahay ururada islaamiga lama jecla oo adduunka haatan maanta ururada islaamiga ma jecla laakiin si nabad loo hela dadka oo ururka islaamiga ah waa in ayagana loo ogolaado oo la siiyo masaaxo siyaasi ah oo ay siyaasadda si nabad ah uga qayb qaataan waa in loo furo oo la yeelo maxaa yeelay reer galbeedka qaabka ay u dhaqdaan iyo qaabka ay Soomaali u dhaqmayso isku mid ma noqon karaan bulshada reer galbeedka qaabkay u samaysan yihiin iyo qaab fikirkooda iyo qaab fikirka Soomaalida isku mid ma noqon karaan marka dadka oo calmaaniyiinta oo diin isku xukumi kara ayagana waa inay aaminsanaadaan dimuqraadiyad inay jirto dimuqraadiyaddana dadka meesha u badan yihiin inay tahay dadka haday u badan yihiin diinta isku xukunna waa in masaaxadaas la siiyo oo loo ogolaado laakiin al-shabaab waa tan marar fara badan loogu baaqay inay dhalinyarta ay ka soo baxaan dawladooda iyo dadkooda iyo bulshadooda ay ku soo laabtaan Soomaha cid u diidan ma lahan inay dhinaca dawladda ay soo aadaan cid u diidan ma laha inay dhanka dawladda soo aadaan
laakiin waxay ku andacoodaan inay diinta ay u dagaalamayaan marka haddii ay diinta u dagaalamayaanna oo run tahayna wax badan aan ka arki lahayn dad ka soo baxaa jira oo madaxdoodii ka mid ah Axmed Madoobe ka mid ah maamul dhan uu maamulay dhowr iyo 10 sano hal mar isagoo la diinta la isku xukumo maana arag waxaan aragnay wasiirro ka soo baxay Mukhtaar Roobo ka mid ah hal mar isagoo u oroleynaya diin la isku xukumo maana arag taasa keenaysa shaki ah in nimanka aanay xuguntoon u badan yihiin oo aanay ahayn diintoon laakiin dadka ku jiro oo dhaxdhaxaadka ah oo diintii wax lagu xukumo raba dad waxaa jira xitaa diin ay ka ahayn oo wadaniyad ahaan u aaday oo u arka in ajnabigan meesha soo galay iyo waxyaabahaas nacab si ajnabiga loogu takhalusa oo Soomaalina ay u maaratay isugu talisa waa in maaratay dawladda ay la timaada qaab farsamo oo dad khubaro la keena oo qaabkii ayagana lagu accommodate gareyn lahay fikirkaas islaamiga ah lagu accommodate gareyn lahay oo hanaanka bulshada doorashada siyaasadda xisbiyadooda ay u furan lahaayeen in loo furo waaye si doodaan ah diinay u taagan yihiin ay meesha uga baxdo labada su'aal aan uga gudbayno arrimaha la xiriira dagaal beeleedyadan ee soo cusboonaaday waxay tahay su'aasha koowaad dagaal beeleedyadan qaybo fara badan oo Soomaaliya hadda ka soo cusboonaaday saameyn intee leeg ay ku yeelan kartaa dadaalkii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab horta haatan dadkii way أنا وحنا أركع فيديو وحاجر تيك توك عن صور لقوا ليه اسكو حراية دجال بالي مركي كذب وحنا أركع تلابو بدن ولا قاضي أو ضد ناطق باقي أوله دجال كان إيه شباب وسامعين يا بلشدي برارو قاعد برارو قاس أسلية هاي مركب وحضر تركلين دونا الرماها لوجو سهر جيدا ورنا الحق تركة مبدأ وطن لوجو سهر جيدا أيام باللابنا يا ليه لكن هري سامعين مو ويا شيء سامعين وين ويا شيء مركب لا دقاقة سنة كي هري markuu madaxweyne xasan yimid oo dagaalka ugu horeeyay shabeellada dhex markay socdeenba waxaan ku leeyahay gobolka shabeellada dhexdiisa dagaal beeleeda ka bilowday dad walaalo ah oo qaraabo hoose ah isdilaaya dagaalkii shabaab nagu socdaa saameyn weyn uu ku yeelanaya haatan oo galmudug iyo meelo fog la sii gaaray dagaal beeleedku waa sii ballaaranaya marka hadday bulshada fahmi weyso inay isku xiran yihiin waa saameyn weyn uu ku yeelanaya mar walbana wuxuu xakinayaa dagaalkan lagula jira oo nimankan loogu saaraya siiba haatan wuxuu dawladdu u soo jeesataan arkaya gobolada Galmudug iyo Hirshabeelle maamul goboleedyada kale way ka hareen sababtay ugu hareenna waa shabaab oo dadkii ku dhex jira iyo dadkii aan wali gaarin bisayl ah inay rabaan inay nabad ku noolaadaan oo ay nimankan xaq jirka iska saaraan oo dhulkooda dhistaan jowhar caasimad waaye maamul goboleed waxaa la rabaa caasimadda maamul goboleedyada kale inay gaarto oo la tirsata dhuusamareeb aad ay u dadaalayaan way soo kaceen laakiin gobolka Hirshabeelle shaqo u baahan yahay iyo maaratay in dagaal beeleedyada laga takhaluso oo horumar loo jeeyo su'aasha ugu dambaysa dawladda arintan siday uga dabaalan kartaa oo ay u xallin kartaa dawladda waxaan isleeyahay ayada wax badan ku furan oo dibadda ku furan oo معارض هول دبلوماسية هذا كفران أو هول جودها كفران أو هول فربنا كفران دولتنا وشعبك مركا وحال الروا مركا شعبكي إن شعبك وحي وجهستان وبدولة قبان كرتا مركا دولة تهذا وحك دولة وحيلا ده هون هو جامن شعبك على الروا إن أرماهم قان كجاران وهرو صعد أي سمايان دولتنا وحيتها إن شعبك فرصة نصيصة إن أرماهن أي كقيب قاتان oo maartay dadka daacadda ah odayaasha oo dhalinyarada ah inay qayb arintan ka qaataan oo maartay hor socodka laga qayb noqdo